xaddiga shaqo la'aanta xeryaha Dadaab ayaa gaadhay halkii ugu sarreeyay kadib markii ay dhaceen xayiraadihii lagula tacaalayay faafitaanka xanuunka COVID-19 waxaana la xidhay goobihii waxbarasho oo halbowle u ahaa shaqo abuurka dhalinta xeryaha Dadaab waxayna dhalintu miciin bideen inay u shaqo tagaan waditaanka gaadiidka yaryar ee aaltada kaasoo bilihii ugu dambeeyay soo buux dhaafiyay xeryaha Dadaab balse shaqo abuurka gaadiidkaas ayaa mid laga dayrinayo wax soo saarkiisa shaqo alta waxa ku soo badatay waxa keenay maadaama oo aniga hadda macallin waxaan ahay oo dugsi ah dugsiyadii waxa la yiri dawladda hal xiro maadaama la xiray waxaan darawal ayaan noqday sida aan nolol maalmeedka aan u soo saaro ciyaalkayga markaan aniga iyo macallimiin badan ayaa jirto dugsiyada xireen oo altaas qabsadeen markaan waxa keenay cudurrada iska jiro corona ah oo hadda ka socda dunida oo meel qaar oo wax ka dhigay ilbaabooyin dhamaan xiray markaan waa arkaysaa magaalada hadda waxa ku soo badatay aalto badan aniga kula hadlaayo aalto marabin madrasa ayaan waxaan hayay 10 sano hadda madrasada waa xiray marka maadaama ay xirantay shaqadaasi waxaan ku wareegay sida arkaysid gaarigan gadaasheeda yaalo aniga askale darwal ayaan ka ahay nolol maalmeedka maalintii ciyaalkayga ayaan ugu raadiyaa aniga waxa la dhahaa Muuse Axmed Maxamed ku sugan xarada xagar dheer ee xarada qaxoontiga marka aan xaqiiqada dhab ugu daadino aaltada waxa maanta jaam magaalada kaga dhigay markii uu dhacay coronavirus hal xabba kama joogin wadanka waxa ku sgareysay marka sidaas dhamanbaa keenay xabadii u horeeyay suuqay soo galeen markii macallimiintii iskoolada dhigayay iyo kuwii madrasooyinka dhigaya amal beeleen qof walaa uu soo gatay sida daraadid ba waxay keentay boqol baa loo bixiyay qof walaa inuu soo gato baabuurtii ay suuqa ka xidhaan oo ay sida gaari gacanka u shaqeeyaan oo luuq kasta galaan sida daraadid ay u soo bateen deemankan meel laga maraabala ayaga baa magaalada jaam gareeyado 3,000 xabo kun dhowdhow jooga magaalada iyo aaltadu iyo dadka isleeg wali way ku soo gurmayaan sidaas ku kosgareysay shaqo la'aantaas ku kosgareysay baahsan markay dhacday in qof kasta soo gato hadii aan ka warramo ganacsiga midkaan aan ku gudi jiro baa ka warrami karaa midkaan aan ku gudi jiro horta aaltadan laakiin hadeertaan waa aaltada way isku soo badatay magaalada jaam fara badan aan noqday waxa laga yaabaa adoo hal qof wado in dhowr iyo 10 gaari jaam ay ku guliso qofkii inuu ka dagaa laga yaabaa oo ku dhaabo inuu kuma suu garay waa ka tagayaaba anagoo 100 wadno hadana nalaay kuma nama sii qaadi kartid dibkeeda leedahay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa wax la bari ilaahay ugu fiican in ilaahay irsaq kala too qeyr qaba noo furo aaltadan iyo dibkeedana dhinac naga leeyahay dhanka kalena dadka ka beecsharaysta shidaalka ayaa qabay rajo wanaagsan balse waxay haatan sheegeen in ganacsiga shidaalku yahay mid qarka u saaran in lagu qasaaro sababtoo ah bay yiraahdeen in gaadiidleyda aaltadu aysan awoodin inay iibsadaan shidaalka waxaan malaynayaa shidaalkan dhowr iyo 10 sano gadayay bilahan hadda u dambeeyay 3 bilood aad iyo aad buu maaragtay hoos ugu dhacay maaragtay suuqiisi wax laga helayo oo ma jiraan maalintii waxa laga yaabaaba meesha meherada intaad furto adoon wax laga gadan inaad iska xidho maalinna wax laga gato marka suuqu aad iyo aad buu xun yahay waxa sababay oo maaragtaan dhihi karaa waxa sababay magaalada oo ay ku soo badatay alto bahalay dhahan oo horaan aan ka sii jirin 2 bilood ama 3 bilood ee hadda ugu dambeeyayna ay ku soo badatay taa oo keentay bandawi lagu soo rogay wadanka dadkii shaqo la'aan markay ku dhacday nin kasta inuu dhaho altaan soo gadani oo biilkan ka raasani meeshii ay magaaladu ka joogtay taksiyaal shan caadiga ee saksiirka oo laga yaabo 100 iyo meelaha inay gaadhayeen baa 2,000 oo aalta la keenay magaaladii 2,000 ee aalto dadka ku nool magaaladan iyo waxa laga yaabaa aaltadii imaatay inay aaltadu ka badan tahay marka saa awood wax raaca aaltadii ma jiraan haddii aan la raacina aaltooyinkina marka shidaalkina wax qaadanaya ma lahaan si kastaba ha ahaatee gaadiidka aaltada ayaa aad u buux dhaafiyay gudaha xeryaha Dadaab waana mid jaban qiimo ahaan waxaana lagu raacaa $1 oo u dhigan 100 shilin oo lacagta Kenya balse mushkiladda ayaa ah in dadka xeryaha Dadaabiyintooda badan aysan awoodin inay bixiyaan $1 taasina waxay sababtay in baabuurtu ay noqdaan kuwo iska fadhiya darawaliinta iyo mulkiilayaashii lahaana ay noqdaan kuwo ay soo wajahda shaqo la'aan baahsan Bashiir Gaxnuug RTN xeryaha Dadaab